runtii bahda abwaaniinta waxaa ka joogo 3 qof oo aad iyo aad qaali noogu ah maadaama na horumarka TV oo wax qabadkooda iyo qoraalkooda iyo poemskooda gaarto not only wadankan diirgelinna ku dadka geliso ilaa ay wadanka hooyo marka waxaan rabaa inaan u yeero Arafat Nuhur iyo Kariye ما شاء الله بهذا أبوانين أنت ومكبدين ما دام نهر الترون سود هذا حاشونين يا ما دام نهر الترون أنت ومكبدين لكن سدح ذا قف ما شاء الله تبارك الله وحيداد آد ياد وحقبت كذمل فوق قارم آد بوم هسنتين بسم الله الرحمن الرحيم ayadoo hala soo gaagaabiyo leeyahay maxaa wax u soo joogay weeyaan maalin kasta waxaan baan arkaynaa aad baan ugu mahad celinayaa dadka soo qiiman qaabiyay xafladan quruxda badan iyo ururka Yahya Foundation waxa macnihii igu soo dhacday qof kasta oo Soomaaliya oo dadaala oo isku dayay inuu muujiyo dadaal dheeraad ah oo dadkiisa wax ugu dareeyo waa la dilaa wala soo qabta macnihi waxa weeye waxa la rabaa in laga dhaadhiciyo hadadaalin yaan lagu dilini macnihi marka taas uu naga daadagaysa ma aha hadaadan dadaalin iyo hadii kale waad dhimanaysaa Soomaa hadaadan dadaalin waxa laga yaabaa cambuulo iyo maraq inta isku cunto inaad shubanto iska dhimanta laga yaabaa biyo laga yaabaa inta ku saxato inaad iska dhimato just waxa magac ka maada tagin maada dadaalin weeyaan qofka asoo magac sameeyay wadad macnihii la yaqaano oo muuqata oo wanaaga oo ma garanaysa ilaa rajulaha qofku galaysa oo ku arooraysa nabad wanaag xasanaad ajr isjeclaansho midnimo Soomaalinimo ku arooraysa hadii uu dhinto macnihii de xasanaad inama acmaalu binniyaad weeyaan laakiin kaas iska dhintay ee kalanta xaafadiisa isaga dhintay wuxuu gudaha ku haystay garanmayna waxa laga yaabaa inuu waxyaabo badan oo kale ku fikiraay hadalkii markaan dib ugu noqdo walaalkay inaad qabiil ka dhalatay ceeb ma de maba suuragelaysa de inaad qabiil la'aan dhalato de waayo waxaan qabiilka lagu sheegayo kaliya la isku aqoonsado qabiilku waxa weeye adiga iyo aabaha iyo awowga iyo kii kale la isku sii dardarayba meel ku sii aroorahay macnaheedu adiga meesha aad maanta taaganta hadii Ilaahay cimriga kugu daayo carruur aad dhasho waad dhimanaysaa awowbaad noqonaysaa awowgaas carruurta aad ku abtirsanayeen adigu noqonayaade marka adiga hadaadan qabiil aaminsanaan jirin ama aadan qabiil lahayn carruurta xagee ku aroorayaan waa meel la weeyaan inaad qabiil ka dhalatay de waa wax qasaba weeyaan qabiil baan ka dhalanay waa run qabiilna wax waa lagu xallin karaa hadii si sax ah loo eego waxa weeye dawlad iyo askar iyo boolis iyo maxkamad iyo inta la helin ka hor ee waxa ay aqoonin qabaa'ilay Soomaalidu ahay deegaano iyo hadalka hadan ku badiyay iska raalaada deegaano iyo ma garanaysaa qoysas iyo reer ay u kala degi jireen waxay lahaayeen duub malaaq garaad suldaan ugaas sheekh imaam macallin iyo wax la isku wada dareeyo fara badan kuwaas waxay ahaayeen kuwii reeraha u talin jiray ee samada iyo nabadda ka talin jiray waxay lahaayeen nimankaas xaakimiin bay ahaayeen waxa loogu dhiibo suldaan iyo malaaq ugu ahaa garasho iyo garaad lagu tilmaansaday la iskaga ma dhiibi jirin de mid ma fikiraa oo iska cunahayo oo iska jiifayo hurdaya looma dhiibi jirin waxa weeye Soomaalida iyadoo saas oo kala damaynta iyo nidaamka iyo xeerka iyo ma garanaysaa wadada saxan soo haysatay yaa gumaysta qabsaday gumaystihii baa wixii isku dhaxyaaciyay ayagii buu isku dhaxyaaciyay hadana kala saarixad u kala sameeyay marka ayadiiba dawlad iyo khasab iyo waxayna aqoonin ba sanka laga galiyay tii markii la soo qabsadayna soo hagaagtayna hadana waa lagu kacay hoos laga marka idinku waa naga nasiib badan tihiin kuwii hore hadina soo gaadhin xataa waxba ka sidii diblahay ogaasidii suldaamada oo la ixtiraamaad soo gaadheen haddana waxa soo gaadheen dawlad iyo ciidan iyo dawlad Soomaaliya iyo waxba soo gaadheen annagu suldaamadii oo tuug lagu isticmaalayo tuug loo yaqaano suldaankan inta lagu xumeeyo
yaa in adeerkiioo reex xoolaa loo dhiibayaa suldaannimadii loo baxayna isagoo isaga lagu xumaynayo waa la gadanayaa maamul buu iska taageerayaa waxaasaan soo gaadhnay dowladdii oo laftirkeeda lagula hay-ada waxaysay oo qoladaasu gacanta dowladdu ninkaa ku baxay urur diimeedyo iyo dad kala baxay oo ma garanaysaa magacyo badan yeeshay oo ninkii soo kacee garaad lehba dilahaya waxaasaan ku hana qaadnay oo kusoo weynaanay marka waa naga nasiib badan tihiin marka aniga qabiilka waxaan ka aaminsanaya waxa weeye haddii sida saxda ahayd loo isticmaalo oo ninkii waxgaradka ahaa la soo dirsado oo la keeno oo waxgaradkii uu matala qabiil hebel ninkaas iyo ninkii kale ee asna waxgaradka ahaa haddii madax laynooga dhigo wax way hagaagayaan laakiin intaan ninka eberka aan soo dirsanayno ee ninkii fiicnaaye fariidka waa asaga waardiyeynayo waxba ma hagaagayaan macnihii saan anagu qabo weeyaan marka aad baa u mahadsantihiin hadalkii anaa idinka qaatay idinkuna shahaadadii baad inoo qaadeen asalaamu calaykum aad iyo aad baa u mahadsan tahay carafaat ya faaraxi nuxur caawa ma hadli laakiin aad baa u mahadsan yahay maa sha allah tabaaraka allah Podcast TV.